Asalaamu calaykum asxaabta waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha iyo tabin kale oo muhiim ah. Xalay ciyaarihii dhacayana falanqeyn doonaa. Haddii aan ku bilaabo xalay ceeb weyn ayaa dhacday kooxaha Premier League oo dhan ceeb weyn ayaa ku dhacday. Ana xitaa waan dareemayay kooxaha Premier League la dhahayay play-off ay ka badbaadeen hal xab ka mid ah ayaa play-off soo martay. Midaasna idin play-off ay kasoo baxday Premier League sanadkan Champions League iyaga qaadaya. Kooxaha Premier League waxay ogyihiin mal everywhere. Kooxaha Premier League wax lagu tusi karo ma aha. Kooxaha Premier League inay champion qaadaan waxay ugu dambeysay 2023 2023 ka horna waxay ugu dambeysay 2021 2021 ka horna waxay ugu dambeysay 2018 kooxaha Premier League inta badan hadda isku daro ma gaarayaan 15 champion. Taasina waxay cadeynaysaa inaysan kooxaha Premier League ku fiicnaan dhanka championka. Waxaan is dhahaynay kooxda kubadda cagta Arsenal way kasoo bixi kartaa kooxda kubadda cagta ee Bayer Leverkusen wallahi saan filayna ma dhicino. Arsenal ayaa waxay noqotay barajatugo bal waxaa badi rabtaba kooxda Bayer Leverkusen 87 Kai Havertz oo penalty helay ay ku badbaadeen Arsenal taasi ay baraj ku heleen ciyaartan. Haddii lugta hore baraj la geliyna maxay ka dhigan tahay marka lugta labaadna Bayer Leverkusen niyad fiican ay haysaa maadaama lugta hore nimankan shartooda la jabiyay. inkastoo Emirates la imaanayo Emirates sanadka asaabkiisa noqdo sida January loo soo laabtay Emirates Manchester United ku soo badisay easy ayuu noqday. Manchester United waxay tusay dadka in Emirates lagu badi karo saas darteed Bayer Leverkusen ay Arsenal waxay la gashay baraajo xoogaa Arsenal waa is dhigi karaa way soo bixi kartaa laakiin kooxaha kale ee xalay ciyaaray sida Chelsea iyo Man City maxaa ku dhacay labadaas kooxood. Haddii aan ku bilaabo Real Madrid iyo sidoo kale Man City sida caalamka la wada filayay dadka ciyaaraha falanqeeya inta badan dadka ciyaaraha fahmaya kasaya inta badan waxay saadaalinayeen in kooxda kubadda cagta Real Madrid kooxda kubadda cagta ee Manchester City ay badin karto maadaama ay ciyaartooyda marka la isbarbar dhigo qadka dhexe ee ka ciyaara Man City qadka dhexe ka ciyaara Real Madrid aad farq u dhaxeeyo. Xitaa Real Madrid xalay ciyaartooy badan baa ka kala maqnaayo ciyaartooy ilmi yar baa lagu garaacay kuwa keedka leey baa lagu garaacay xalay Man City. Waa ciyaar inta badan dadka ay filayeen inay Man City labada lugba ay mari doonto kooxda kubadda cagta Real Madrid balse tababaraha cusub ee Real Madrid ayaa waxa uu keenay tactical lagu celi karo Pep Guardiola xalay hela waa gali waaye sameeya habsheegan duuku oo la dhihi jiray garabka ayuu doonaya xalay Alexander Arnold oo Premier League oo zero u mari jiray ayuu xalay markuu Real u baxay uu wax ka bedeli waayay. Saasna waxay ku cadeynayaan inay kooxooyinka Premier League ay ku liitaan marka la ciyaarayo Champions League. Xalay mar ayaa dhacday Pep Guardiola waa yaabay isagoo waxa ka soo yeertay yaabi ama kaad maxaa dhacay macnaha nimankan saan League ku maalinka ka badanaya si walba ha ahaatee xalay Man City waa laga adkaaday iyadoo ceeb weyn ay ka soo gaartay koox ciyaartooy muhiim ay ka maqan yihiin sida Mbappe oo maqnaa Rodrigo oo maqnaa sidoo kale xalay Tchouaméni oo sidoo kale dhankiisa u maqnaa in koox intaas ciyaartooy muhiim ay ka wada maqan yihiin aad ka badi weydo adoo ciyaartooyna ay wada joogaan hala uu ku joogo sameeyo uu ku joogo duuku uu ku joogo sidoo kale goolka haayihii ugu fiicnaa oo sanadka hore Champions League qaaday uu ku joogo Donnarumma difaacyadii ay wada joogaan seasonkan gudihiisa laba ciyaareen adag ah soo gadatay haddaad koox sanadkan iyo sanadka horeba dhiban aad ka badaladay wallahi Premier League ma jiro Champions League haba sheegan Man City sanadkan zero koob ay bixi doontaa sida sanadka hore oo kale. Saaxiib haddii aan fiiriyo kulanka labaad ee u dhaxeeyay kooxaha PSG sidoo kale Chelsea ayuu u dhaxeeyay. Chelsea waxay tagtay garoonka PSG waxaana laga soo aaray 3-0 ay finalka ugu badisay koobka kooxaha adduunyada ee Chelsea ay ku adkaatay. Taasina waxay cadeynaysaa in sanadkan mar kale PSG ay tahay tartame cad waana mid ka mid ah labada koox kaliya u tartamaya UEFA Champions League kuwaasoo si cad falanqeeyayaasha u saadaaliyeen inay qaadi karaan UEFA Champions League kuwaasoo kala ah kooxda kubadda cagta Bayern iyo kooxda PSG ayaa saadaalinta inta badan
ay ku jirtaa, inkastoo ay Arsenal meesha ay ka marneen. Laakiin Arsenal indhahan loo jeeday saadaashan wax laguma qaadi karo. Koox Bayer Leverkusen Bradley miyaa ku saadaali karnaa hadda inay qaadi karto, inkastoo ay waxaanay ay banoon yihiin saacad walba isbedeli karaan. Laakiin inta badan saadaasha xal aan aragnay ciyaartii Arsenal iyo Bayer Leverkusen, Arsenal runtii uma muuqato inay tahay koox wax qaadaysa. Taasina waxay ku tusinaysaa in kaliya labada kooxood uu cadcad ee la isdhihi karo sanadkan way qaadi karaan midkood uu yahay PSG iyo sidoo kale Bayern Munich, inkastoo ay wax walba isbedeli karaan daqiiqadba daqiiqada ka dambeysa. Laakiin sida hadda ay saadaasha ku socoto, labadana kooxood ayaa ah kuwa ugu awooda badan ee ka ciyaara qaaradda Yurub. Sidoo kale haddaan fiirino kooxdii kubadda cagta ayaa ahayd adkaaday kooxdii ka socotay reer Norway. Taasina waxay ku tusinaysaa inay kooxdan sanadkan reer Norway iyaduna ay tahay kuwa soo gaari kara finalka ama semifinalka UEFA Champions League, iyadoo garaacday kooxo waaweyn oo ay ka mid yihiin Man City, Inter Milan, Atletico Madrid iyo sidoo kale kooxda Sporting Lisbon ayaa xalay gurigooda waxay ugu adkaatay 3-0. Taasina waxay ku tusinaysaa inay kooxdaani u gudbi karto wareegga 8-dhamaadka ee tartanka. Haddii ay wareegga 8-dhamaadka u gudubtana, waxay is arkayaan Arsenal haddii ay Bayer Leverkusen ka soo baxdo. Meeshan waxaa ka dhici doona kulan weyn, waana koox weyn ayaa loo aqoonsan karaa sababtoo ah waa koox garaacday ugu yaraan 3 koox ama 4 koox waaweyn, Champions League-na play-off-kana ka soo baxday, haatana lugta hore sii gashatay wareegga 8-dhamaadka. Taasina waxay ku tusinaysaa inay kooxdan u muuqato koox weyn oo la saadaali karo. Saaxiibayaal, caawana waxaa jira kulamo waaweyn oo ka tirsan koobka Europa League, kuwaas oo ay ciyaarayaan kooxaha ka dhisan reer Yurub. Waa tartanka labaad ee ugu xiisaha badan marka laga soo tago tartanka koowaad oo ah UEFA Champions League. Caawa waxaa ciyaaraysa laba koox oo ka socota Premier League, iyagoo may difaaci karaan sharafta Premier League oo aysan isbuucan wax koox Premier League aysan ka badin UEFA Champions League. Labadaasi koox ee ka socota Premier League waa Aston Villa iyo sidoo kale Nottingham Forest, kuwaasoo kala baxaya. Aston Villa ayaa la ciyaaraysa kooxda Lille markay saacadda Geeska Afrika tahay 8:45 daqiiqo, halka Nottingham Forest-na ay 5 saac habeenimo u baxayso koox kale oo ka socota horyaalada Yurub. Haddii aan fiirino, waxaa jira Roma iyo waxaa isku baxaya Bologna, sidoo kale Porto iyo Stuttgart-na way ciyaarayaan. Kuwaana waa kulamada ugu waaweyn ee laga ciyaari doono caawa Europa League, waxaynu ku arki doonaa wixii dhaca. Barnaamijyadeena dambe ayaan ku falanqayn doonaa. Saaxiibayaal, waa mahadsantihiin daawashadiina. Ha iloobin inaad subscribe saartaan channelka aadna like gareysaan. Saaxiibayaal, waxaan idinkaga codsanayaa inaa hal qof xitaa subscribe ii saaro si aysan dhiirigelin ii noqoto. Waa mahadsantihiin.